arrintan waxay muujinaysaa in saxaafadda la caburinayo in loo caga jugleynayo inaan fursad loo siinayn waxa uu dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 12 uu damaanad qaadaya ee ah madax bannaanida saxaafadda warbaahinta madaxa bannaan ee ka hawlgasha magaalada Hargeysa oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa waxa ay ka hadleen xukun ku dhacay 3 wariye oo kala ah Maxamed Cabdi Sheekh Khilig mulkiilaha telefishanka Cabdi Jibbaar Maxamed Xuseen oo ka tirsan telefishanka Home Cable oo ay maxkamadda gobolka Maroodijeex ku xukuntay sanad iyo 4 bilood oo xariga sidoo kale waxa ay ka hadleen xariga suxufi samafale Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo maxkamadda rafaanku ay maanta ku xukuntay xarig 2 sano ah iyo sidoo kale 3 milyan oo ganaax lacageed ah ilaa sanadkii 2004 ay golaha wakiilada Soomaaliland ansixiyeen madaxweynaha Soomaaliland uu saxeexay isagoo yaala ay maxkamaduhu laaleen wariyaashiina aan xeerkaasi lagu qaadayn kiisaska loo haysto waxaanu ka xunnahay xarigaas sanadka iyo 4 bilood ah ee labadaasi saxafi ku dhacay waxaanu ka xunnahay isna xukunka maanta ka soo baxay maxkamadda rafaanka ee Soomaaliland wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon lagu xukumay iyadoo maxkamadda gobolka Maroodijeex ay hore u sii deysay isla markaasina ay wax dambiye ku weeday arrintan waxay muujinaysaa in saxaafadda la caburinayo in loo caga jugleynayo inaan fursad loo siinayn waxa uu dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 12 uu damaanad qaadaya ee ah madax bannaanida saxaafadda sida loo sheegay wariyaasha xidhan ee maanta uu xukun ku dhacay Maxamed Cabdi Sheekh Khilig oo gudoomiyaha telefishanka Home Cable Cabdi Jibbaar Maxamed oo isna Home Cable ha iyo Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon saaxiibaday ayaa dhameeyay oo waxay noo sheegeen in xukun ku dhacay uu yahay mid aan madani ahayn oo xeerka ciqaabta guud ayaa loo isticmaalay waa mid aynu cambaaraynayno kana soo horjeedno maalintii dhaweyd ee madaxweynaha Soomaaliland khudbadeynaya waxaas lahaa si ay u dhameystirmato dimuqraadiyadda iyo maxaa la yiraahdaa wanaagga Soomaaliland ay halkaasi ku soo gaadho waxa oran doonaa wariyaasha xidhanna la sii daayo maanta waa maalin weyn waa maalin taariikhda saxaafadda Soomaaliland ku suntan oo aan marnaba ilaabi doonin waxaan cambaarinaynaa xukunka maxkamadda waxaan jeclahay in walaalahay Cabdi Jibbaar Maxamed Cabdi Khilig labaduba iyagu xora dalkoodii ciidooda ay joogaan oo ay ka waramaan oo shaqadii quruxda badnayd ay soo wadi jiray ka waramaan marka markan waan cambaarinaynaa xarigaasi waana ka xunnahay saxaafadda Soomaaliland intii Soomaaliland jirtay 30 sano waxay ka qayb qaadatay horumarka dhisitaanka ammaanka dhaqaalaha siyaasadda uma qalmaan in la xiro ugu hore waxaan cambaaraynaynaa xadhiga kala duwan ee ku dhacay wariyaasha ee ka soo baxay maxkamadda rafaanka iyo maxkamadda gobolka Maroodijeex Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo 2 sano ay ku xukuntay maxkamadda rafaanka ee gobolka Maroodijeex xarigiisa waan cambaaraynaya waana ka xumahay labada wariye Cabdi Jibbaar Maxamed iyo Maxamed Cabdi Sheekh iyagana waan ka xumay xarigooda guud ahaan waxaan arkaa waxaasoo xariga shakhsiyan waxaan aragnaa iyaga saxaafad ahaan caga jugleen iyo caburin la doonayo in lagu bajiyo inta kale wariyaasha waxaan aragnaa godob ay u qabaan dad gaar ah saxaafadda iyo cadaawad ay u abuurayaan saxaafadda Soomaaliland ee qaranka iyo ummadan u shaqeysa inay tahay xukunka maanta lagu riday labada suxufi saddexda ahaa midna la sii daayay labadana la xukumay waxaan aragnaa xukunkaasi inuu yahay mid sharci darro ah inuu yahay mid baalmarsan sharciga saxaafadda waxaan xukuumadda ka codsanaynaa in xeerka ciqaabta guud ee saxaafadda lala daba socdo saxaafaddu tuug maaha waxna may xadin laakiin in loo adeegsado xeerka madaniga ah ee dadka caadiga lagu xukumo waxaan golaha wakiilada ugu baaqanaa in xeerka saxaafadda ee hor yaalla ay ku dhiiradaan xildhibaanadu inay ansixiyaan oo ay dardartiisa qaataan waxaanu ka midaysanahay dareenka ah inuu yahay mid xaaraan ah oo aan xalaal ahayn xariga iyo xukunka ku dhacay wariyaashaasi waxaanu arkaynaa mid lagu xalaashanayo dabcan xuquuqdii saxaafaddana iyo warbaahinta madaxa bannaanna meel kaga dhacaysa wuxuun baanu u aragnaa xarigaas iyo xukunka mid 30 sano ama 30 sano oo Soomaaliland ay jirtay kadib haatan xukuumadda talada Soomaaliland haysata ay go'aansatay inay soo afmeerto warbaahinta madaxa bannaan oo 30 sano la soo dhaafay ka howlgalaysay gudaha Soomaaliland dariiqa loo maray ama xeerka loo maray wariyaasha xarigoogu mid sax ma aha taasina mid aan aqbalayno ama baanu yeelayna maaha marka xukuumaddana waxaan oran lahaa haddii wariyaashii qaar dalka ay ka carareen qaarkoodna xeerarka caynkan ah lagu xukumo
qaar kalena baqdin ay magaalada u joogaan arrin wanaagsan inaanay ahayn iyo mid saxa iyo mid sharciya. maxamed axmed cabdilaahi maxamed xudayfi iyo nuurudiin cali gabyaaye telefishinka CBA Hargeysa.